بسم الله الرحمن الرحيم macaamiisheena sharafta leh ee ku xiran shirkadda Dallas Real Estate walaalayaal soo dhawaada ku soo dhawaada gacmo furan ku soo dhawaada qalbi furan ku soo dhawaada adeeg hufan oo idin raali geliya haddaba walaalayaal sida nooga barateenba waxaa maanta mar kale idin soo gudbinaynaa guri iib ah ee walaalayaal ku soo dhawaada daawasho wacan ka faa'iideysi wacan waxaa rajeynayaa in aad ka heli doontaan insha allahu tacaala walaalayaal waxaa iib ah guri fillo ah waa guriga hadda aad arkaan waxaa ku dhex jirnay gudaha banaankiisana waa kana wadadan weyn ayuu leeyahay waa gurigan ganjeelka gaduudan leh ku soo dhawaada waxaan guda galayaa xogta gurigan fillada ah ee iibka ah oo dhameystiran insha allahu tacaala ka bogasho wacan walaalayaal haddii aan ku bilaabo meesha uu ku yaallo dhulkan gurigan iibka ah raalli ahaada waxa uu ku yaalaa magaalada muqdishona waxa uga sii yaalaa degmada wadajirna waxa uga sii yaalaa xaafadda korontada waxaa ka mid tahay xaafadaha waaweyn ee degmada wadajir waxa ay ku dhowdahay suuqa weyn ee Madiina xaafadda suuqa weyn ku dhow ayaa la dhahaa korontada isgoyska korontada markaa joogto ayaa waxaa gurigani aadeysaa dhankaas iyo suuqa weyn laamigaas suuqa weyn xoogaa yar ayuu u jiraa sidoo kale dhanka xalane waa ka geli kartaa oo laamiga oo aada dhankaas iyo jasiira markaa raacdid guriga asna uma dheera marka xaafaddaas istiraatiijiga ah ayuu ku yaallaa walaalayaal ku soo dhawaada waa dhul laba laami oo waaweyn ama yacni fillo laba laami oo waaweyn u dhow marka waa meel jaanis ah oo fursad ah xaafadaha ugu fiican ah la jecel yahay deegaan ku fiican dhan walbaba maxaa la lahaa gurigan meesha uu ku yaallo waa meel fiican walaalayaal haddii aan ka hadlo cabirka oo gurigan fillada ah ku fadhiyo cabirka waa 20 lagu dhuftay 10 ama finti bardiyeeshe wijiga hore waxay u tahay gurigan fillada ah 10 mitir dhirna waxay u tahay 20 mitir waa cabir weyn oo macquul ah gurigaas quruxda badan leh ayaa ka dhisan walaalayaal waxaa ka dhisan ilaa 6 qol sidoo kale waxa uu leeyahay 2 musqul ama suuli meeshaas waxaad ka fahmi kartaan in cabirka uu weyn yahay 6 qol waa guri dhameystiran oo xitaa family balaaran si fiican ugu filan waa filladaas hala soo dhawaado walaalayaal laga faa'iideysto haddii aan ka hadlo walaalayaal jidka oo gurigani leeyahay waxaa hormara hal wado oo weyn waa guri fillo ah oo hal jidle ah ma aha laba jidle laakiin wadada hormarta waa wado weyn oo laamiga toos kugu ridaysa haddii aan ka hadlo walaalayaal jihada oo gurigan fillada ah u jeedo wuxuu u jeedaa jihada waqooyi ama dhanka qiblada marka waa guri fillo ah oo hal jidle ah isla markaasina ah waqooyi ujeed haddii aan si fiican u faahfaahiyo laamiyada idin sheega ee laamiga suuq weyn aada isgoyska korontada ka taga iyo kan aada xalane inta u kala jiro laamiga xalane waxaa ka xiga 5 boos oo kaliya waxa uu ka yahay booska 6aad laamigan kale ee suuqa weyn aadane waxaa ka xiga kaliya 10 boos waxa uu ka naqanayaa booska 11aad runtii waa guri laamiga u dhow oo laba laami weliba si fiican ugu dhow marka laamiyadaas xataa waa jidad uu gurigani leeyahay dhankaa rata ayaa kasoo geli kartaa wadadaas weyn ayuuna toos u haystaa hala soo dhawaado walaalayaal
haddii aan ka hadlo sidoo kale dhanka dukumentiga ama warqadaha oo gurigaani leeyahay, dukumentiga gurigaani uu leeyahay waa nadiif, waa dukumentiyadii hore ee Maxamed Siyaad Barre, rasiid, sabarloog, warqadaha oo dhan way u dhan yihiin, dhammaan warqadaha muhiimka ah si loo wareejiyo dhulkaani ama gurigaani. marka laga faa'iideysto dhul waxaa laga gataa ama guri waxaa laga gataa dukumentigiis waa heer sare. xaafadan waxaa la cabiray xilligii dowladii kacaanka, marka xagga warqadaha wax hawlo ah ka qabta ma laha. nootaayo alle midaa jecesha ayaa lagu geenaya si lagaaga xaqiijiyo sax ahaanshaha dukumentiga. walaalayaal, haddii aan sidoo kale ka hadlo qiimaha ama lacagta lagu rabo gurigan villada ah ee iibka ah, waxaa lagu rabaa walaalayaal 145,000 oo doolarka Mareykanka ah oo isku dhamaad ah macal dalaal iyo heshiis. runtii waa qiimo macquul ah oo u qalmo gurigaani, maxaa yeelay waa guri dhisan oo si fiican u dhisan, dhismihiisa waa u adag yahay, haddana meel istiraatiiji ah ku yaala labada laami hadda idiin sheegay saas ugu dhow. dukumentigiisa uu Maxamed Siyaad Barre yahay 145,000 oo macal dalaal ah, waa qiimo macquul ah. haddana haddii aad ku qanacdid oo gurigan lagu soo tusiyo ka heshid wixii macquul ah waa laga fargelinayaa. heshiis ayaa ka furan, beec waxaa la yiri meeshuu ka bilowday kuma dhamaado. lambarada meesha ku qoran la soo xiriir shirkadda Dallas Real Estate haddii aan nahay, waxaa diyaar u nahay inaan ku soo tusino. haddii aad dibadda jirtid, qof wakiil ah noo soo dir, ha lagu soo arko. marka lagu soo arko kadib qiimaha markaas waa laga heshiinayaa, si fiican ayaa idin dhaqaaleynayna. mar walba waa jecelnahay inaad wax raqiis ah gadataan insha Allah. waxaana ku dadaalnaa lacagtaada inaad geliso meel aad hubto oo isku haleyn kartid. walaalayaal, haddii aan ugu dambeyntii ka hadlo waxyaabaha oo gurigaani ku fiican yahay ama uu ka anfici karo. walaalayaal, wuxuu idinka anfici karaa deegaan, waa meel camiran oo istiraatiiji ah, deegaan ku fiican. sidoo kale walaalayaal, wuxuu idinka anfici karaa mustaqbal ahaan ama bararsi. waxaa suuragal ah in gurigan lacag idinkugu kororto. sidaa la socotaan magaalada way soo dhismaysaa, weliba dhanka iyo xeebta kasoo dhismaysaa. xaafadan xataa hadda dabaqyo badan iyo guryo badan oo waaweyn ayaa laga dhisay. marka waa xaafadaha isbedelka uu saameynayo horumarka magaalada ee xagga dhismaha. meesha marka waxaa laga yaabaa in mustaqbalkeed in wada dabaqyo noqoto, dhulkeeda uu kor usii kaco. taasna marka waa ka anfici karaa oo gurigaaga qaali uu kuu noqdo. sidoo kale kirada waa ka anfici karaa, sidiisa ayaad ku kiraysan kartaa. hala soo dhawaada walaalayaal, haddaa eriyadan dhulku leedihiin ama dhammaan degmooyinka gobolka Banaadir nala soo xiriira ama guri waa idin gadeynaa. haddii aad u baahan tihiin sidoo kale waa idin helaynaa insha Allah. ugu dambeyntii waad ku mahadsantihiin daawashada muuqaalka iyo ku xirnaanshaha shirkadda Dallas Real Estate. waxaan si sharaf leh kaga codsanayaa inaad kanaalka subscribe noo saartaan, gambaleelka furataan. idinkoo mahadsan. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.